waxa weeyaan Soomaaliya waa la inagu gumaaday dadkii guryaha ku jiray baa la soo baxay jasiira lagu laayay halkaas lagu aasay kolka waxa weeyaan intii kale waa caasimadiina way ahayd taa dadka laga soo xulaya ee reeheba loo soo xulaya caasimadii baa kolka wax rajaa oo Soomaaliya iyo Somaliland ka soo muuqda ama ka dhaxeeya ama iman kara ma qabo inay muxuuha jiraan mustaqbal iyo imikaba kolka u sii fiirsato waxa weeyaan nimankii waxaan geystay ee Somaliland baabi'iyay ee muxuuha reer ahaan muxuuha dadka u dilayay UN kuna way ka seexdeen oo wixii ethnic cleansing wixii ay ku sameyn jireen dadka Rwanda wixii loo sameeyay inaga hakradeen oo UN ka iyo waxaan is wataa teen ma soo wata qura aan cidina soo qaadin weeyaan ta kale jirta waxa weeyaan kulkii aynu dalka ku soo noqonay Soomaaliya caalimahadii iyo gruubkii caydiidiyana xagga muxuuha qabteen kulkiiba waxa ku caalimahadii ku dhawaaqay dawlad aan la inagala tashan oo wax la inaga weydiin oo wixii in gaaray iyagoo og iyo sidaynu isugu nimid ayuu ku dhaqaaqay waxaan farmaajana ka maqlay aynu muxuu shuruud yaan la iman shuruud waa la imani oo waxa weeyaan shuruudaasi waxa weeyaan dadkii waxaan geystay xaqooda waxay ka qoran yihiin niman geesiyaal ah waa dadkii waxaan geystay halkii laga ciqaabi lahaa ayay ka mudan yihiin ayay kaga jiraan in dad muxuu geesiyaal ah waa laba fikradood aad u kala fog kolkaan waxa qabaa ka tagaana waa muxuu waa khaain inuu tagana maaha cid inaga tagta maaha waxa weeyaan wada hadalkuna hadaanay ka garaabayn wixii la inoo geystay oo ayna raggii waxaan geystay dabagelayn oo dambigoodii lagu qaadayn inaynu wada hadalno maaha inaynu u tagnana maaha inaynu wax isku darsanana maaha if iyo aakhirba inaynu colaahana